بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan ka sheekeyn doonaa qiso ku saabsan fadliga ay leedahay quraanka kariimka iyo sida la isku daway. maalin maalmaha ka mid ah nin reer baadiya oo beertiisa ka guranayo qoryo ayaa si lama filaana wuxuu ku dhacay ceel u dhawaa beertiisa. dadkii deegaanka ayaa ku soo baxay ceelkii ninka waa laga soo saaray, laakiin nasiib darro ninku wuxuu ka jabay labada lugood. gurigiisa ayaa la geeyay. meeshan waa meel tuula oo dad masaakiin oo faqri ay ku nool yihiin oo muslimiina ma haystaan isbitaal ay ku daweeyaan, ama tuulada kuma taal isbitaal lagu daweeyo. muddooyin ayuu gurigiisa yaalay, xanuunkiina waa ka sii daraya. maalin maalmaha ka mid ah waxaa magaalada safar ku soo maray, tuulada safar ku soo maray nin socota oo xaafidul quraan ah oo culamaa u diinka ugu weyn wadanka ah. arrintii ayaa loo sheegay. wuxuu yiri ii keena ninka, quraan ayaan saaraya. dadkii ayaa la yaabay, waxay yiraahdeen quraanku daawo ma noqotee isbitaal noo geey oo noo caawi, adaa magaaladii ka yimid. wuxuu yiri waxaan idin barayaa fadliga ay leedahay quraanka kariimka, kuna kalsoonaada kalaamka Ilaahay ayadaa daawo ku jirta. ninkii waa loo keenay, quraan ayuu saaray. maalin kadib quraan u saaray, maalin kale quraan u saaray. isbuuc ayuu quraan ku waday. dadka deegaankuna waxay dhahayeen ninku ma daboowayo oo daawo ma haysto. nacaawi adaa naga roon ee noo geey magaalada noo soo daweey. ilaahay fadligiis waxaa yimid dhaqaatiir socota oo ilaahay dartii u socota, samafal u socota oo indhandhaanaysa deegaanka. kadib xaaladii ayaa dhaqaatiirta loo sheegay. ninkii ayay isbitaal u qaaday. wadaadka ayaa kula taliyay dadka reer miyiga ah, inta qofkaan isbitaalka loo qaadin ee xanuunsanaya waa in kowdii loo hormariyaa in quraanka la saaro. quraanka ayaa daawo ku jirta. hadduu qof xanuunsado waa in aan hore isbitaal laga geyn ee quraanka la saaro. ilaahay ayaa faraj u furayo. quraankuna waa faraj. daawada quraan ku jirtana waxa weeye inuu ilaahay kuu sahlayo dariiqii aad ku dawoolayd. ilaahay wuxuu kuu sahlayaa dariiqii aad ku dawoolayd haddaad aaminto quraanka. quraanka aad akhrisato markaad xanuunsato, ilaahay wuxuu faraj kaaga dhigayaa quraanka. wadadii aad ku dawoolaydna ilaahay wuu kuu sahlayaa haddaad quraanka isku saarto. markaad xanuunsato quraanka saa jirkaaga waa dawoowaysaa. ilaahay dawan kuu sahlaya insha Allah. وأنا محمود عبد حسن كلنت الدنبو حيصله بلنتين وإنان آمنا كلامك إلهي السجا يداود كجرتا وإنان نسكت وإنا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.